سورة داودة وكو أفرت بقر الدنيا سوء حكومية maalintii uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dunidan abuuray ilaa iyo haatan waxaa dhacay in afar boqor oo ah ay awood u yeeshaan inay maamulaan dunida oo dhan geeska gees waxa Ilaahay qadaray in afartaasi laba ka mid ah ay noqdaan muslimiin halka laba kalena ay noqdaan gaalo Nebukadnezar iyo Nimrud waa laba boqor oo gaalada ahaa ee dunida oo dhan soo maamulayay halka Nabi Suleymaan alayhi salaam iyo Dulqarnayn ay ahaayeen labada muslimka ah boqorkii koowaad wuxuu ahaa Nimrud wuxuu ahaa boqorkii ugu horeeyay ee dunida dhan maamulayay wuxuuna fariisinkiisu ahaa magaalada Baabil ee dalka Ciraaq kuma ekaan inuu ahaado bani aadan ee wuxuu sheegtay rabbinimo Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa u soo diray nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam wuxuuna nabi Ibraahim ku amray Nimrud inuu rumeeyo diinta islaamka laakiin arintaasi wuu diiday gaalkaasi weynaa waxaana dhex martay sheekadan Nimrud waa kuma ilaahaagu nabi Ibraahim alayhi salaam ilaahaygu waa kan wax walba abuuray waana Allah wax dilo waxna nooleeya Nimrud wuxuu amray in loo keeno laba nin markaasuu mid dilay midna sii daayay nabi Ibraahim wuxuu bedelay xujadiisii taasoo tusaysay aqligii ilaahay siiyey wuxuuna yiri cadceedu waxay ka soo baxdaa mashriq ee bari ka soo saar maqrib Nimrud baa wareeray oo arintaasi ay tusisay tabadaradiisa arinta cajiibka ah waxa weeye markuu Nimrud dhimanayay waxa ilaahay ku saliday tuksi ama tixsi sida u taqaano oo kamid ah ciidanka ilaahay kaasoo sanka ka galay gaalkaasi kibray ilaa uu kabtiisa madaxa isaga garaaco sida ayuuna dulinimo ugu dhintay boqorkii labaad wuxuu ahaa Nebukadnezar wuxuu la mid ahaa sida boqorkii hore marka laga reebo inuu ahaa hogaamiye ciidan oo aad loogu baqi jiray xilligiisii wuxuuna hogaamiye u ahaa 100,000 oo dagaalyahan wuxuu ku dhashay magaalada Baabil ee dalka Ciraaq markuu kibray ee imaaradiisu bilaabatay wuxuu ku galay dhulka Shaam isagoo baqdin galiyay reer Dimashq waxay ogolaadeen heshiis iyagoo hanti aad u fara badan ay siiyeen markii dambe wuxuu xarun ka dhigtay Baytul Maqdis isagoo halkaas kala wareegay boqor ka mid ahaa dadkii rumaysnaa diinta islaamka gaar ahaan Nabi Daawud alayhi salaam gaalka weynaa ee dunida maamulay ayaa wuxuu ku caanbaxay inuu dulaysto oo adoomo uu ka dhigto carruurta iyo haweenka ayagoo ragguna ahaayeen ciidankiisii markii dambe waxaa isna tuuray 90,000 oo ka mid ahaa carruurtii uu dhalay nabiyullaahi Casiis alayhi salaam waxaana laga soo kasbaday gumaysigii Nebukadnezar boqorkii saddexaad wuxuu ahaa Dulqarnayn magaca Dulqarnayn wuxuu ka dhashay dadka dhexdooda kadib markay arkeen geesinimadiisii kartidiisii iyo awooddii uu Ilaahay siiyey wuxuu ku barbaaray magaalo dadkeedu yihiin kuwa dulaysan oo aan lahayn caqiido taliska xilligaas ka jiray caalamkana wuxuu ka ahaa gaalo markuu arkay siday wax u dhacayaan ayuu bilaabay dacwadda Ilaahay ilaa dadkii iimaanka lagu galaday ay ka bateen gaalada intaasi kadib wuxuu arkay riyo cajiib ah waxaana uu saaxiibadiisa u sheegay inuu ku riyooday isagoo samada koray oo qabtay ilayska cadceeda waxay ku fasireen inuu hanan doono dhammaan caalamka isla markaana uu yeelan doono ciidamo xoog badan oo dunida xaqa ku faafiya ugu dambeyn wuxuu Dulqarnayn noqday hogaamiyihii caalamka wuxuuna ku guuleystay inuu adduunka ka hirgeliyo waxdaaniyada Allah boqorkii afraad wuxuu ahaa Nabi Suleymaan alayhi salaam maamulka boqortooyadii Nabi Suleymaan mid la mid ah soo marin dunida waxaan Ilaahay u fududeeyay jinka iyo insiga wuxuu Ilaahay baray hadalka xayawaanaadka daweeshuna isaga ay ka amar qaadan jireen Nabi Suleymaan waxa dhalay Nabi Daawud labadoodu Allah ha u naxariistee waxay ahaayeen kuwa Ilaahay diintiisa faafiyay maalin maalmaha kamid ah wuxuu Nabi Suleymaan isku diyaariyay dhammaan ciidankiisa jin insaan daweyl iyo xayawaanada oo dhan uu waayay hudud wuxuuna ku fikiray inuu dilo ama ciqaabo haddii uusan sabab cad la imaan wuxuu ku fikiray inuu dilo ama ciqaabo haddii uusan sabab cad la imaan wax yar kadib shimbirkii hududka ahaa baa yimid wuxuuna sheegay inuu maqnaanshihiisu ahaa sabab weyn wuxuu sheegay inuu soo arkay boqorad laga baqo oo qoomkeedu u sujuudaan qoraxda Nabi Suleymaan hududkii u sheegay haddii uu been sheego in la ciqaabi doono waxaana Nabi Suleymaan la kulmay haweeneydaas oo lagu magacaabi jiray Balqiisa dood dheer kadib way rumaysay Nabi Suleymaan waxaa laakiin aad cajiib ah in dadkii xilligaas rumaysnaayeen qaarkood in jinka ogaan karo cilmul qaybka Ilaahay baa doonay inuu arinkaasi cadeeyo ka hor inta uusan dhiman Nabi Suleymaan alayhi salaam waxaana la isku yeeray dhammaan jinkii oo la geliyay shaqo adag kadib wuxuu Nabi Suleymaan ku dangiigsaday gidaar halkaasoo nafta ay kaga baxday way shaqeeyeen ilaa ay sanad hawl adag wadeen iyagoo aan ogeyn inuu boqorkii dhintay indhaha nabiga oo kala furnaa awgeed way ka baqayeen laakiin markii dambe baa ushii Nabi Suleymaan waxaa cuntay namli
kadib baa dadkii oo dhan ogaadeen inaan jinku waxba ogeyn qaybka Allah. intaasi waxaa nooga dhan qisooyinkii 4 boqor ee dunida oo dhan soo maamulayay.